السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان شعبك الصومال ملك سيجوغان هبين معن وناكسن والبيش كمين مقرن أو قبرتي هنجنك ضلك يدتكم من الصومالي إنه كقيب قادنا ما شاء الله برنا حاجة مرة أنت أني كجسور جلا أنت أن كقيب قارك ضلك يجا وهي حق بيقولي هاي مركز إنه ضلك يجي ضلك يجا وتنسون أنا قرب استاجو هدي أيمن هاي أمة الصومالية وضلك حق بيسكوليه حق ودنا وإني كهالجمال ربطة دمانتي صور ولا لها قيمة بدن اسكو دوبني ما دوكسلو نقضاء قفك الصومالي وحي أباهي إنه قرنكيسة دفاعه سيك الصباح هاتي أديقو أن أفلقادي وحبا أنا سمين إنه سوق روح بدن أدلكا دفاعي ما شاء الله ما أنتو هدنا وحيابا بدن دلكي كوسو كردي سودو هذا دمانتين مديها أصحاب كبير وعن ونكسن والله ذي سود وادي وعضدني يا أصحاب أنت كذا كتير كبير وعن ونكسن الجماعة سرع وعي سود وبول أنسقى ذكرينا ولي بسقمانين قرني مدى قبيلك والله الشعب الصومال مكسي تشوغان ومضيا مدى قبيلك يوم قرني مدى والله أنسقى ذكرينا ولي بسقمانين قولي قبل ما شعبك صبا مكسي تشوغان وقرد ميقاشو هدي أن لك لقا يا بس قرد سودو هذا المانتين هبينو عنه وناكسن هالقياش سرع وقو صلاة محمد وراوكي هالقياش سرع دمان يسحب هالكا كتفتو قولي قبل ما دمانتين هدي أن لك لقا يا بس سودو هذا ولا في محبة هرجنا كشرنا إن شاء الله أنت تقبلتنا وينك سمعنا أقول ستو عنك في محبة هركا يديا سودو هذا ولا في محبة ودنياش قيمها بدن هالقنياش ويشينا وعلي محمد علي حسين دلينك دكتور تعلي يضمك والسلامة هبين وعن هيس كل أيدين رشدايا هبين وعن ونكسن ولا لها قيمها بدن مكسر شوكتان عاو حين كهد دون أمنية مقالة مقدشة أما أمنية الصومالي يسبدل كبلارن ودلكو كسبي ودنكي oo lagu xiray kaamirayaal si loo helo dadka waxa qarxinay ma sha Allah aad u qiimaha badan iyo ku shisheeyaha u shaqeeyo gumaystaha oo raba dalka istiil wixii shalay la waayay in ay shalay jir inay ku soo celiyaan oo shacabka iyo ay iska hor keenaan ay dawladda ama ay dalkeena cadow ku yihiin si ay u baabi'iyaan waxaynu lahayn waxaynu ku tacabnay aan waqti gelin ma sha Allah dhamaantii soo dhawaada taana waa muhiim in qof walba oo Soomaali uu u taagnaado qarankiisa ama ay shacabka fahmaan meesha ay dhibaatada kaga timid ama meesha kaga socoto way markuu dib yimaad aadan soo dhawaala dhamaan adii walaalkay Maxamed Cali iyo halgamayaasha halka ku jira qiimaha badan guul iyo gobonimo qof walba oo Soomaali halgama asaa iska dhigi kara cidna kama dhigi karto qaranka waa leedahay waa inuu wada leenahay waa inuu wada difaacnaa inuu istaagnaa isbeddelka dalka iyo dadka waa muhiim dal walba markuu burbur ku dhaco waxa isbeddel ka sameeya dadka shacabka halka degan ama shacabka dhulka iska leh hadii kaar waxaynu noqonaynaa dad baabay oo dhamaaday oo hantidoodii la qaatay dadkan qarandumiska la baxay magacan qarandumis anaga oo la baxnay waxaan u la baxnay marka inuu aragnay inay ku kashmeen oo ay cadawga u geynayaan badaheena ama ciideen ama dalkeena oo wali dalka joogo oo raba inay dib u baabiyaan ama ay ka sameeyaan sometimes dad bay soo dir waxay yiraahdaan dagaal xamal ka dhacayo xamar waa lagu baabi'ay madaxda baa la dilay in dagaalku waxaan soo celinaa kii hore ayaga ku riyoona wixii ugu riyoonay waxay rabaan in dalka
sidii shalay iyo cadawgii gacanta loo geliyay in dalkan agreementyaasha laga saangareeyay la qalaso in dalkan dadka lacagaha kasoo qaateen ay rabaan lacagahoodii dib uguma celin karaan because way ku badan tahay marka inagu markaynu u halgamayno dalka iyo dadka walaalayaal qaali aad u qiimo badan waa idin salaamay dhamaantiin guul iyo gabadhimo guulaysta rag iyo dumar inta halkaa ku jirto marka annaga waxaynu ugu halgamayna aynu usoo galayna aynu u qaylinayna inaynu shacabkeena wax u ifino dadka social media ku jiro ama public figureka markasta waxay u ifiyaan shacabka dalka ama madax hadday noqoto ama xildhibaano whatever dhammaanteen dalka annaga wadale inaynu shaashada saarno waxa xun ama markay madaxda arkaan inaynu garab ku siino si aynu u garab istaagno laakiin haddii laga indhixirto oo aynu noqono dad ama qabaa'il qaado ama dad darahooda aan garanaynin dad dayac baynu noqonaynaa waayo dalkaaga markii badaha la iibsanayo ciidda badda qashinka lagu shubaayo oo dhinac walba laga baabi'inayo oo nin walba gadanayo dubay inuu fadhiisto oo badahaada iibsado guriga ku iibsado hadda markii dhaweyd oo kenya ay warqadaha soo dirta darad maxaa la yiri rag badan oo maamul goboleedyada madax ka ah ma rabo inaan magacooda meesha garay because maba doonayo inaan ma garanaysaaye dad badan waa la tira badan yahay dadka waddanka baabi'iya hal iyo laba ma aha haddaan hal magac qaada maxay taraysaa inay ku siboodgareeyeen maxkamadda badda taale ay yiraahdeen baddaada iskale kenya ku soco jas ay waxay eegeen hantidooda meesha ugu taalo wallahi haddii ay gobonimo samayn lahaayeen dhihi lahaayeen kenya waxaad leedahay mala shaqana kuma lihid badaheena faraha kala bax guryahooda sharci bay ku heli lahaayeen waddanka markaa sharci wax ku iibsatid sharci baad ku helaysaa laakiin maaha inaad u baqdid xoolahaada iyo daraha gaarka aad leedahay ama aad rabtid inaad dib ugu soo noqotid ama gobol maamushid ama meesha doonti maamul ama ra-iisul wasaare usu soo sharax ama waxaa rabta oo darahaada gaarka aa eegsatid oo aad sheeyihii garab siisa marka dadka noocaas waddanka soo mara ama kuwa soo mari doono ama kuwa hadda joogo soomaali waxaa qurux badan hal meel looga soo jeesto haddayna hal meel uga soo jeesanin waxay noqonayna dee dad lamid oo raba dalkooda in la dhaco sam waxaynu nahay mal laakiin ummadda soomaali waxaa lagu jeediyey ina adeer in hebel adaa qabiilkayga qabiilkaasa inacib because beri baa isdagaalnay because waxbaa naga dhexeeyo because annaga bay cadow nagu yihiin waxaasay dadka ka dhaadhiciyaan soomaalida waxaa la doonaya inay ka digtoonaadaan waxa uu cadowgu wato iyo calaamaduhu leeyahay ayaa noocaasa cadowgu wuxuu leeyahay inuu dadka kala jibiyo inuu dadku isku diro inuu iyaga soo cabeeyo lacag siiyo ama uu rabo dalku uu ka dhasho u tago uu dhaho waa nala necib yahay waxba layma ogolo waxayna noqdo lama ogolo mana ogo hantidii oo dhacayaan mana ogo waxba uma qabanayaan mana ogo waxay isleeyahay ow iska daa ha iska dhamaystay inta yarta uu hayso oo iska daa khilaafka nooma fiicne isguul marka khilaafkaasoo kale inuu dhaco oo ay dadka noqdaan dad adag ay yiraahdaan waddanka hadduu dhibka u geysanayo anaga waxba nooma tarahay because waxaynu doonayna xaafadaheen inaan dhisano gobolladeena degmooyinkeen inaan dhisano kasoo qabo dembi buu haystaaba dembi buu sameeyey ama qof baa maxkamad lagu keenay guri baa dad laga dhacay maxkamadii baa lahoos keenay maxkamadii muusan qaadin sida la doonaya because markaad xaafad mas-uul ka tahay waxaa mas-uul ka tahay shacabka degan waxaa mas-uul ka tahay dhibka loo geyso inaad ka shaqayso waxaad mas-uul ka tahay gar iyo gardaro dadka inaad u gar qaadid haddaa intaada aan qabanaynin oo la dhaho ow hebel basashakaa la qaadaya in laga bedelo waa maqribkuu baxaya wuxuu u tagaa tolka ehelkuu ka dhashay basashkaa laga qaadaya because qabiilkeen lama jeclo waa waray iisoo baxaa laakiin dadkii ka dhashay dib ma eega maxay dhahay ninkan shaqadiisa ma qabtay ninkan seeq dadku magu shaqeeyey oo waxaa ma sameeyey oo disaan dama dhahayaan oo way soo duulaan wuxuu leeyahay annaga ha nagala garbaxo ma loo dhamo basashkaa nagala qaadaya dad kale la siinayaa ama waxaa laleeyahay basashakaas degmadaas laga qaadayo u keensada qof asiga qabiilka ama matalo ama shaqo wanaagsan you see because qofka shaqadu kasoo bixi waay haddana asaynta qofka sidii noqonaya marka taana waxaa caddayn karta dadka inuu qabiilka la dagay aynu badankood boqolkiiba 35 ay ahayn dad daacad ah aanan u hagarbaxaynin shaqada ay hayaan marka runta la hadlayo dadkeena kadibna uu qabiil ku hoos jiro laakiin dowladda nabad iyo nolol hadda waxay samaysay inay dabagasho in dadkii qofka shaqaysan waayo oo kale la ruqseeyo uu markaas la yimaado dadka ay ka dhashay qof shaqo wanaagsan taana waxaan oga galaya kamoodo xaafad iyo degmo iyo kamaan waxaan ka hadlayaa dhammaan inaga markay hantideeni naga baxda aynu baaba'nay oo maxkamad nala hoos dhigay aynu noqono iyagoo og kenyaatiga iyo carabaha inay u tagaan aanan xataa la dhehaynin maxkamadii bad baa naga maqan ay leeyihiin oo adigaa saxan guudaa tahay bad adigaa iskale warkooda ka bax madaxweynahan shalay darin uu tagaayahay dowar anaga soo sharxeenay ay lacagaha soo aruursadaan ay rabaan dalkeen in ay dumiyaan dadka noocaas maxay idiin taraayaan dadka raacayo ka daran midka garab istaagayo ka daran qabiil ku raacayo ka daran ninkan sidaada dhacayo ee kuu raba inaad gaajootid oo aad baaba'did oo batroolkaada ciidan lagu qaato oo madahaada iyo dahabkaada la qaato oo lagu adoonsado tomorrow intee u socotaa marka qabiilo muxuu kuu qaban maxaa tahay intee u socotaa marka dadka Soomaali waxaa laga rabaa inaynu qabiilka meel wada dhigno raggan
in danahooda runtii aad ay u fara badan tahay oo waddanka raba inay xamaasad dagaal ka abuuraan oo waddankii ciidankiina habeenkii oo dhan socdaan ay fahmayaan meesha wax laga soo tuuray meesha u dhacday ay ogyihiin meesha ay sheekada ka socoto filimka hore wuu dhamaaday because meel kasta camera lagu xiray meesha wax ka dhacaan habeenkii waxaa la galay shaqooyinka rootada oo ciidanka day and night oo lagu kala qoray shacab lama waxyeelayna straight away qofkaas basaa loo soo qaadanaya laakiin berri ninka waawar ee qabiil ku taageerayo please and please hadda intay goor tahay arrimaha hoosa loo dhigo dalkan hore u socday qofkii wanaag u horkeenayo dhahaaya anigu waa ku garab istaaga shacabkayga dalkayga anaga diyaaraan unahay shacabaan wadanahay shacabaatii shacbi unahay nabadan wada doonaynaa ma doonayna dhib laakiin in laga waco Kenya in laga waco Carabaha in meelaha laga waco in lagu shiro oo la daba taagnaado dalkan doorashadiisa iyo waxqabadkiisa iyo horumarkiisa ciidankiisa walaalayaal ilaahay idinku dhariye in aqligiina ma shaqeeyna in maanta ciidanka anaga aynu dhisana ay dad daba taagnaada ay yiraahdaan maxay tahay ciidanka la dhisaayo maxay tahay ciidanka Jubbaland laga soo wado ciidanka hala xaray xirigooda lagu celiyo Turkiga maxay noo tababarayaan dadkaas miidhihi lahayd wadaniyiin waa adoo qabiil ku taageerayn oo ku taageeray oo garta aad sheegayso oo Soomaalinimada sharafta iyo qiimaha leh oo aan ugu garab istaagaysay dalkaaga dadka wadan aan ciidan lahayn wuxuu yahay mala ciidanka amisom waxay ka qaataan lacag aad u tiro badan ay ku qaataan wadankeena number 2 inaga waxa noo qurux badan inaynu noqono dal xoog la ciidan dhisan number 3 xuduudaha way dayacay ahaayeen dayac xuduudaha lagu soo xiray hore u soconaynaa wadamadeena waxaa imaanay kambaniyaal maalgashto waxaynu qodanaa macdanteena dalku waa la dhisay waxyaabo aad u qurux badan laga sameeyay aan 1 iyo 2 aan ka soo sheegi karin taariikhda dalka aan lahaa taro maxaa bari ilmihii loo dhigi doono iskuulada wala soo celi iskuulada fariig wala soo celi waxyaabo tiro badan dalkii laga sameeyay marka maxaa loo baahay as shacab as Soomaali as people inaynu inaga dhexdeena xaq ka wada hadalno aan iska qabano mid ka xumaha sameeyay 1% ka hadashay ma jirto badeeni inta maqnayd mid ka hadla ma jirto ciidankeena aynu in haysanin aynu baabaasan mid ka hadla ma jirto u dhahay taro dalkan way burbursan tahay dhexda aan u xirto wixii dhacay dhibkana soo gaar uu dhacay war maanta aynu u tanasulo dalkeena ma still qasba la wadaa dadkan waxa laga rabaa umada Soomaaliyeed ilaahay sharaf dad aad u qiimo badan baatiin dad cisi karaamo lahaatiin dalkiina waa jeceshiin umadiina waa jeceshiin waxa laga rabaa dadka qaarkood inay dalkooda u tanasulaan ayagoo lacag haysta ayagoo ladan ayagoo wiilo ayagoo xoolo ka iibsaday ayagoo kambaniyaal oo wadankii intay shaqeynayeen intii kala ay ka heleenba oo la rabo qof walba oo Soomaali inuu wadankiisa maalgeliyo still waxa laga laayahay nabad biiski nabad lama doonaayo maantooda waa la soo weeraray inta laga soo dhacay insaan leeyagu sameeyay intaan ka baxnay yacni waxyaabo tiro badan oo loo baahan yahay in dawladda iyaga soo fadhiistaan ay ka wada hadlaan aayaha dalka baa la doonaya laakiin markii cagaha la isaga dhago oo la dhaho day and night dawlad baa daba taagnaynay ciidanka dhisnaan ka hadlaynaa ciidanka jidka maraa laga hadlayaa guryaha la dhisaa laga hadlayaa airport la dhisaa laga hadlayaa waxaas dawladnimo waxaas ma aha shacabnimo ama as dalnimo lagu taageerayo dalka because dadku markuu shacab yahay ama hore wax u soo maamulo ama uu inuu wax maamulo dawladda maanta jirto waqtigeeda la siiyaa dalka iyo dadkana wala garab istaaga taas ah Soomaalinimo qiimo leh sharaf iyo karaamo leh marka dadka badanaa waxa jiro 100% maanta dadkii waxay rabaan dawladnimo Soomaalidii way soo ilbaxday dad ilbaxo wax barta waynu ahayn oo qiimo leh rag iyo dumarba laakiin dadkeeni burbur iyo dagaal maysan garaneyn waa la qaxay hodana ay soo dhawow aadan dhamaantii walaalaha wadaniyiinta qiimaha badan dadkooda jecel soo dhawaada inta kale ilaahay soo haday xaq Allah tusiyo anaga burbur ma aanan garaneyn dadka burburkii iyo dhibkii qaxi markay arkeen qof dagaal doonaya mal dad waxaan arkay mas'uuliyiin oo xildhibaan isku sheegay ama ex wasiir soo ahaa oo dhahay 1991 baa loo noqonaya macaanad ka cadaysa 1991 dagaalka haduu walaalka ku dhacday halkay aaday ma biibaysaa mise guriyaha aad dibadaha ka dhista u tagaysa waa may kolley buu ku effect gareyn ummadaadu baa dagaal u keenaysaa alxamdulillah maanta adduunka caalamkan uu na garab taagay ilaahay uu na garab taagay caalamkan uu na garab taagay wuxuu ogaaday dalka intaas burbur ku jir inuu ilaahay maanta madax fiican siiyay ay u istaagtay qiimaha ummadooda iyo dib u dhiska ay rabto in ay ka sameeyso nabad iyo wanaag all maxay ahayd East Africa oo dhan East Africa dhinaca anaga ilaa West Africa because haduu East Africa ay nabad noqoto as Soomaali anaga ahaan agagaarkeen nabad ay noqonaysaa